مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ولا ليال وبرنامج كيني تحانها أها محمد رسول الله، وأن أغهد ليني تاريخ نولاتك رسول كان صوبا صلوات ربي وسلامه عليه. وحين سوقارني للشديسي صلى الله عليه وسلم wuxuu dhashay rasuulkeena suuban maalin isniin ah 12 bisha rabiicul awwal caamul fiil. 12 rabiicul awwal maalin isniin ah caamul fiil, sanadii la oran jiray sanadii maroodiga. sanada maroodiga taariikh yar ayay lahayd. waxay ahayd waxyaabihii mucjisooyinka ee dhacay rasuulkeena intaanu dhalan ka hor ayay ahayd. waxyaabihii dhalashada rasuulka loogu gogol xaaragay ayay kamid ahayd. waxaa maka ku soo duulay nin la oran jiray abrahatul ashram ayaa wuxuu ka yimid cadan, ayuu ka yimid dhulka yemen. abrahatul ashram nin la oran jiray oo boqor ahaa ayaa ku soo duulay oo dhinaca yemen ka yimi. wuxuu yimid maka isagoo ku hubaysan maroodiyaal. ciidankiisa oo dhan waxay ahaayeen maroodiyaal. maroodiyaashii waxay doonayeen in ay jajabiyaan oo ay burburiyaan maka, oo ay maaragtaa kharibaan, oo ay fasahaad iyo ay haleeyaan, si guri uu uga dhisay yemen loogu tago xajka oo dadku halkaa ay maaragtaa cibaadada ula jeestaan. laakiin ilaahay ma uunan oran. arrintoodii khiyaanadoodii iyo dulmigii iyo wixii ay maleegayeenna waxay ku dhamaatay khasaare. ilaahay ayaa beedkiisa difaacay. dadkii oo dhan baa la laayay. waxaa lagu diray shimbiro koox ah oo sita gantaalo laga keenay lagu sameeyey jahannam oo aad u yaryar, laakiin quwadooda iyo baaxadooda ay weyn tahay ayaa ma aragtaa lagu laayay. waxaa ka sheekeynaysa alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fi tadliil waarsala calayhim طayran ababiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum kacasfin ma'kuul. waxa weeyaan arintoodii oo dhan baa ilaahay baabi'iyey. khiyaanadoodii ayaa ma aragtaa dib loogu celiyey. waxaa laga dhigay waxaanan jirin, bal la shafay oo la hoobiyey oo ma aragtaa dhulka la jijiifiyey oo kale ayuu arintoodii ilaahay ka dhigay. iyagii oo dhan sidaasaa laga wada dhigay. waxaa weeyaan hal dhumi hal dhaan raaca dabeeshaasaa lagu wada daray gadigood. si xun ayay u dambeysay noloshooda. marka maalinka ayuu dhashay rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi isniinta ah. sanadka ayuu dhashay caamul fiil. wuxuu dhashay rabiicul awwal 12keedii. waxaa nuujiyey markii ugu horeysay hooyadii waxaa la oran jiray aamina bintu wahbin. dhowr maalin ayay nuujisay.
kadibna waxaa loo dhiibay oo nuujiyey oo ku xigay hooyada Thuwayba gabadha la oran jiray waxay ahayd jaariyad uu lahaa rasuulka adeerkii Abaa Lahab waxay nuujisay dhowr maalin ay iyadana sidoo kale ay nuujisay kadib awowgii Abdul Muttalib ayaa wuxuu u qabtay Xaliimatu Sacdiya Xaliima bint Abi Du'ayb gabadha ka timid baadiyaha Bani Sacad reer Bani Sacad waxay ahaayeen oo ay ku noolaayeen nuujiyaal ay ahaayeen dadka ayay u nuujin jireen reer Maka ayay u nuujin jireen ilmahooda intooda badan maalin maalmaha kamid ah ayaa Xaliima iyo koox haweena oo ay wada socdeen waxay ka yimaadeen baadiyaha Bani Sacad waxay yimaadeen Maka sanadkaas wuxuu ahaa sanad abaar ah oo aan cirka roob loo ogeyn dhulkana caws loo ogeyn dadkii oo dhan gaajo ay wada haraysay sanad aad ay dadku u baahan yihiin xoolihii ay u baabaceen ay ahayd waxay yimaadeen magaaladii Maka iyagoo raadinaya ubad ay nuujiyaan ciyaal ay ka haystaan haweenkii magaaladii ayaa lagu kala faafay oo la galay qof walba wuxuu soo helay cunug uu nuujiyo qof walbana wuu maray guriga Aamina guriga wiilka yar ee agoonka ah guriga khayru khalqillaahi laakiin marba haday ogaadeen in aabihii dhintay way ka wada tilaabsadeen oo way ka wada tageen Xaliima ayaa kamid ahayd Xaliimatu Sacdiya way aragtay laakiin way ka tagtay maxaa wacay dadku waxay doonayaan awowna dooni ma hayaan adeerna dooni ma hayaan hooyana dooni ma hayaan wiilka haduu aabihii nool yahay way rabaan kasta yare iminka ay qaadanayaan ma aha waxay u jeedaan waxa weeyaan hadiyadaha uu aabaha u keenayo markaa kadib uu keenayo mar walba uu imanayo waa wiilkayga hooyadii waxa weeyaan wiilkayga ama gabadhayda hooyadii nuujisay mar walba uu imanayo waxa weeyaan hadiyada mar walba gabadha ay magaalada imaada hadiyada la siiya yaana siinay hadiyada waa xaaba adduunyo bal fiir cunuga agoonka ayaa looga tagay laakiin akhiran ilaahay wuxuu ku hanuuniyay oo uu khayr la doonay Xaliima bint Abi Du'ayb Xaliimatu Sacdiya gabadhaas baariyada ah ee rasuulkeena soo korisay soo nuujisay muddo 5 sano ah Xaliima ayaa qaadanaysa laakiin ajaa'ibta dhacday shay walba maalintii mar ay gacanta ku soo dhigtay oo ay laabteeda saartay mucjiso walba way ku aragtay rasuulka wax ayaan hore u arki jirin ayay ku aragtay markii ugu horeysay oo ay laabta saartay Xaliimatu Sacdiya cunuga agoonka ah Muhammadul Yatiim محمد بن عبد الله أبو القاسم مركي أي سارتي لابته barakadiisii waxay ka dareentay laabteeda naasaheeda ayay ka dareentay caanaheeda ayay ka dareentay way gurnayd markii hore wiilkeeda yar habeenkii dhan buu ooyayay oo caano ayuu la'aa laakiin markay saartay laabta naasihii baa dararay markaas caanihii cunugii ka dhargay naaskii cunugii kale naaskii kale ayuu cabay hal ay siteen waxa way gurnayd iyaga Xaliima iyo ninkeeda la socday gaajo ayaa haysay meel ay wax ka cunaan iyo cid ay u tagaan ayay la'aayeen laakiin Muhammad markii ay qaaday oo laabteeda ay saartay hashiibay barakadii ka aragtay Xaliimatu Sacdiya Allah Mustafa salawaat rabbi wa salaamu alayhi ku salli agoonka yarka ah Muhammad markaas caanihii bay bahashibaa darartay way ka dhargeen dameer yar oo ay siteen sidoo kale barakada ayay ka aragtay wax xuna wuxuu ahaa ma aragtaa gaabiya oo liita oo aanan soconin oo caata ah oo wuxuu ahaa ma aragtaa dhulka jiifa way ku daaleen markii ay imanayeen Maka oo ay ka imanayeen baadiyaha waa la sugayay Xaliima soo soco nan dhaqaaji Xaliima waa kugu daahni waadna daahisay laakiin markii dambe wixii dhan buu ka wada dheereeyay xoog ayuu yeeshay orodka baa Ilaahay u furay waa la yaabay محمد مركي أي جيسي مجالدي باديه بني سعد وحوين بركديسي مجالدي نبى الله يعرفه روب بايمد عاوزكي قف والباو حوج على استي ماشي حولها حليمة أي راعي لو راعي إن حوله هذا اللي جيو محمد اليتيم دلشديسي بركة أيوها بلاد كردن عالم كردن محمد وحوج جوجي هلك صلوات ربي وسلامه عليه مدشن سنة شنتها سنة وأي حليمة باديها أي كهيسي أو أخلاق دقن أري راعة فردها ما أركا فلارتوردة
وحكست وكألت كهذه لغة فصحى اللبري هو ذا طريقة نظيف كأه معاني أدقون وكسو برباري وكسو كري قرابدي أهلك يوم أركتا وسو برناي محمد صلوات ربي وسلام عليه سنة وجوجي ماشى وحد عذي حادثة أحيد دعذي لعبت للجاحي محمد صلوات ربي وسلام عليه لو ملك أيا يمد جبريل يا ملك لا أيا يمد والبيكينين مركز محمد انت اللي لقدي لعبت للجاحي أيا لا سو صاري قلبي يسي أيا لا سو صاري حنجر بالجوجي حنجرته وحلي روا ماشي أي فريسني ماشي وفريسني إبليسك نصيبك وجرك وكلها ويان مركز اللي بحيي والله دقي لعبتي باللوج عليه حكمة باللوج بوحيي محمد صلوات ربي وسلام عليه يا نور شن سنة مركي أوجاري حليمة وحي أسوء عليسي هو يدات وعبسة حليمة وحي كبغضي ما دام ما أنت محمد للجاحي أو لبا ملك أي مادين يدو مين أقول إني ملائكة ويلي رأي وذا جوجين مركا أيا أنتو غيركي أوردي يرى هاي محمد والد دلي محمد وننتي كاري صوكع markay u yimaadeen maxamed oo ay bedelan oo si kala oo yara madluunsan oo ay markaasi u cabsatay 5 sano ayuu jiray waxay u soo celisay hooyadii xaliimatu sacdiya baadi bani sacd maadaama 5 sano uu la noolaa oo baadiyaha la joogay oo ay soo nuujisay laabteeda ay ku dooday cunugeeda uu ahaa hooyo ay u noqotay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maxamed ميو حلمامي هو يدي أبالك الله قلي ميو حلمامي كنتن لحسنة تعال كالي كنتن لحسنة كذب فتح مكة رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه أؤمه فتح مكة أو عظام الاستوى مرايان oo islaamkii uu guuleystay ciidamadii muslimiintii ay maanta joogaan maaragta sharaf oo wufuudii dhan ay imanaysa magaalada dadkii soo islaamayay dadkii hubka laga dhigayay rasuulka maaragta uu dadkii qaabilahayo oo ciidamadii dadkii la soo qafaashay iyo uu ku dhex jiro oo uu mashquul yahay ayaa halkaas oo kale waxa ka soo baxay islaam waayeel oo markiiba gartay in ay tahay hooyadii حليمة بنت أبي ذؤيب حليمة سعدية مركز رسول صلى الله عليه وسلم عليه انتو كأرضي وسود دويه عبايدي سي أفذيي وأصحابتي إسكعيريي وأوليهي دعوني أتكلم مع أمي ساعة ورساعات قرائسية أهو يذي لشيكيسي وأقسلاي وما أركتا وإنتاسيتو يا أولشيكيساناي أبال انت لك أذيك إلا ينكو دارشي يا كور hooyadii ku dhashay ee ku soo korisay sabab u ahayd jiritaankaagan iyo joogitaankaagan adduunka dushiisa sabab u ahayd goorma kugu dambeysay hadii aad ka soo tagtay Yurub aad joogto oo aan kula joogin goorma kugu dambeysay oo aad la xiriirtid oo aad la hadashid oo aad codkeeda maqashid oo aad dhahday hooyo assalaamu calaykum hooyo see tahay ka war xaaladaada aabaha goorma kugu dambeysay walaalaha kuwii ka yaryara oo aad u joogtay booska aabaha aad u joogtay ka war xaaladooda goorma kugu dambeysay haye qaraabadaadii sidoo kale goorma kugu dambeysay xageen kala joognaa aniga qaraabadii aniga ehelkii aniga salatu rahim xageen kala joognaa waa soo laabanayna qadar xaysin kadib السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال وبرنامج كان تحانها أها محمد رسول الله وأن أغهد ليني تاريخ نولات كي رسول كان صوبا صلوات ربي وسلامه عليه وحين سوقارني للشديسي صلى الله عليه وسلم وحود شيء رسول كان صوبا مال سنين لوي طبنك بشهر ربيع الأول عام الفيل لوي طبنك ربيع الأول مال سنين عام الفيل سندي الأورنجري سندي مروديقا سند مروديقا تاريخ يرعي لحيث waxay ahayd waxyaabihii mucjisooyinka ee dhacay rasuulkeena intaanu dhalan ka hor ayay ahayd waxyaabihii dhalashada rasuulka loogu gogol xaaragay ayay kamid ahayd waxa maka ku soo duulay nin la oran jiray abrahatul ashram ayaa wuxuu ka yimid cadan ayuu ka yimid dhulka Yemen
abrahatul ashram nin la oran jiray oo boqor ahaa ayaa ku soo duulay oo dhinaca iyo Yemen ka yimi wuxuu yimid Maka isagoo ku hubaysan maroodiyaal ciidankiisa oo dhan waxay ahaayeen maroodiyaashii waxay doonayeen in ay jajabiyaan oo ay burburiyaan Maka oo ay maaragtaa kharibaan oo ay fasaahad iyo ay haleeyaan si guri uu uga dhisay Yemen loogu tago xajka oo dadku halka ay maaragtaa cibaadada ula jeestaan laakiin ilaahay ma uunan oran arintoodii khiyaanadoodii iyo dulmigii iyo wixii ay maleegayeenna waxay ku dhamaatay khasaara ilaahay ayaa beedkiisa difaacay dadkii oo dhan baa la laayay waxa lagu diray shimbiro koox ah oo sita gantaalo laga keenay lagu sameeyay jahannam oo aad u yar laakiin quwadooda iyo baaxadooda ay weyn tahay ayaa ma aragtaa lagu laayay waxa ka sheekeynaysa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul waxa weeyaan arintoodii oo dhan baa ilaahay baabi'iyay khiyaanadoodii ayaa ma aragtaa dib loogu celiyay waxa laga dhigay waxaanan jirin bal la shafay oo la hoobiyay oo ma aragtaa dhulka la jijiifiyay oo kale ayuu arintoodii ilaahay ka dhigay iyagoo dhan sidaas laga wada dhigay waxa weeyaan hal dhumi hal dhaan raaca dabeeshaas lagu wada daray gadigood si xun ayay u dambeysay noloshooda marka maalinka ayuu dhashay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam alayhi isniinta sanadka ayuu dhashay caamul fiil wuxuu dhashay rabiicul awwal 12keedii waxa nuujiyay markii ugu horeysay hooyadii waxa la oran jiray Aamina bint Wahb dhowr maalin ayay nuujisay kadibna waxa loo dhiibay oo nuujiyay oo ku xigay hooyada Thuwayba gabadha la oran jiray waxay ahayd jaariyad oo lahaa rasuulka adeerkii Abaa Lahab waxay nuujisay dhowr maalin ay iyadana sidoo kale ayay nuujisay kadib awowgii Abdul Muttalib ayaa wuxuu u qabtay Halima bint Abi Du'ayb gabadha ka timid baadiyaha Bani Sa'ad reer Bani Sa'ad waxay ahaayeen oo ay ku noolaayeen nuujiyaal ay ahaayeen dadka ayay u nuujin jireen reer Maka ayay u nuujin jireen ilmahooda intooda badan maalin maalmaha kamid ayaa Halima iyo koox haweena oo ay wada socdeen waxay ka yimaadeen baadiyaha Bani Sa'ad waxay yimaadeen Maka sanadkaas wuxuu ahaa sanad abaar oo aan cirka roob loo ogeyn dhulkana caws loo ogeyn dadkii oo dhan gaajo ay wada haraysay sanad aad ay dadku u baahan yihiin xoolihii ay u baabaceen ay ahayd waxay yimaadeen magaaladii Maka iyagoo raadinaya ubad ay nuujiyaan ciyaal ay ka haystaan haweenkii magaaladii ayaa lagu kala faafay oo la galay qof walba wuxuu soo helay cunug uu nuujiyo qof walbana wuu maray guriga Aamina guriga wiilka yar ee agoonka guriga khayru khalqillaahi laakiin marba hadii ogaadeen in aabihii dhintay way ka wada tilaabsadeen oo way ka wada tageen Halima ayaa kamid ahayd Halimatu Sa'diya way aragtay laakiin way ka tagtay maxaa wacay dadku waxay doonayaan awowna dooni ma hayaan adeerna dooni ma hayaan hooyana dooni ma hayaan wiilka haduu aabihii nool yahay way rabaan kasta yare iminka ay qaadanayaan ma aha waxay u jeedaan waxa weeyaan hadiyadaha uu aabaha u keenayo markaa kadib uu u keenayo mar walba uu imanayo waa wiilkayga hooyadii waxa weeyaan wiilkayga ama gabadhayda hooyadii nuujisay mar walba uu imanayo waxa weeyaan hadiyada mar walba gabadha ay magaalada imaada hadiyada la siiya yaana siinay hadiyada waa xaaba adduunyo bal fiir cunuga agoonka ayaa looga tagay laakiin akhiran ilaahay wuxuu ku hanuuniyay oo uu khayr la doonay Halima bint Abi Du'ayb Halimatu Sa'diya gabadhaas baariyada ee rasuulkeena soo korisay soo nuujisay muddo 5 sano Halima ayaa qaadanaysa laakiin ajaa'ibta dhacday shay walba maalintii mar ay gacanta ku soo dhigtay
oo ay laabteeda saartay mucjiso walba way ku aragtay rasuulka wax ayaan hore u arki jirin ayay ku aragtay markii ugu horeysay oo ay laabta saartay Xaliimatu Sacdiya cunuga agoonka ah Muhammadul Yatiim Muhammad ibn Abdullah Abul Qasim markii ay saartay laabta barakadiisii waxay ka dareentay laabteeda naasaheeda ayay ka dareentay caanaheeda ayay ka dareentay way gurnayd markii hore wiilkeeda yar habeenkii dhan buu ooyayay oo caano ayuu la'aa laakiin markay saartay laabta naasihii baa dararay markaas caanihii cunugii ka dhargay naaskii cunugii kale naaskii kale ayuu cabay hal ay siteen waxa way gurnayd iyaga Xaliime iyo ninkeeda la socday gaajo ayaa haysay meel ay wax ka cunaan iyo ciiday u tagaan ayay la aayeen assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah rasuulka suuban salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muddo 5 sano markii baadii bani Sacad uu joogay ayaa wuxuu ku soo laabtay oo loo keenay hooyadii Aamina bint Wahb Aamina wuxuu la joogay muddo sanadka uu la joogay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii uu dhamaaday oo 6 sano uu jiro ayaa waxay go'aansatay wiilkan in ay barto ehelkiisii waxa waa reer wada awfiyaa waa reer wada ballanta oofiya abaalkii loo galo gudo weeyaan waxay damacday oo ay jeclaatay wiilkan inay ehelkiisii ku xidho aabihii walaalihii inay ku xidho aabihii qaraabadii inay ku xidho reer Madiina inay u geyso ayay doontay markaas 500 oo kiiloomitir ayay isu jiraan Maka iyo Madiina ayay gabadhii qaaday ayay wiilkeedii xambaaratay waa cunug yar oo jira 6 sano iyo Umu Ayman xagee loo safraaya gaari ma jir diyaarad ma jirta waa la lugeynayaa 500 oo kiiloomitir dhul wada buuraa oo wada kaxa oo wada abaara oo wada bacaada oo wada kulul oo ma aragta aan la socon kareenin intaas waa maxay wasilatu rahim yaa ogsoon in adduunka maadaama aabihiiba uu dhintay oo aanu arkin yaa ogsoon inuu Ilaahay oofsan doono hooyada oo uu wiilka u baahan doono abtiyaalkii u baahan doono maxaa laga ogyahay yaa balfiiri wayna dhacday wixii ay ka baqaysay Xaliimatu Sacdiya reer wada oofiyaal ah aabihii bay doontay inay soo barto xabaashiisa ay dhahda aabihii ku dhalay halkaas uu ku aasan yahay hay Xaliimaan halkaas ay u socotaa diin male laakiin oo diin soo degtay malaha واجب سارن ملها أهل فترة لوجرها لكن حليمة سعدية فترة هذا سليم آمنة بنت وهب فترة هذا سليم إلهي وكو أبور إنسان كأردن أي استعماشي أي سوموجسي أي كحريرسي أو أي سوحدي ويلكرير أبتيجي أي كحريرسي أو أي محمد نمانت أبتالك وجينيسا 500 كيلومتر أي أول وينيسا هاي أنا لكن هو إسلام كل حجرنا oo wiligan islaam aanu ahayn maxaan sameeynay silatu rahim intaan qaraabo xiriirin jirn intaan qaraabo xiriirin lahayn waxaan xiriirneena oo aan noqonay silatul ahjar dhagxanta xiriirneena anaga ilaahay baan kugu dhaariyay bal fiir rasuulku wuxuu leeyahay silatu rahimi tutilul umr qaraabadu la xiriiriye cimriga ay dheeraysaa ajir baa laga helaa dadka isku jeclaanaya irsaaqda ilaahay kugu waasicinaya ubadku ilaahay ku siinaya ubadku ilaahay kugu wanaajinaya qaraabada la xiriiriyay ugu horeyso waalidka waxa weeyaan walaalaha waxa weeyaan ciyaar maaha ina waalidka sida ay qaraabada u xiriirisid laakiin annaga maanta ila qofan hooyadii 10 sano arkin oo aan walaalihii arkin oo aanan ka warqabin aan la xiriirin ayaa waxa laga yaabaa Yurub intuu ka soo kaco inuu Qaahiro ugu yimaado oo isagoo booqanaya oo ilmihii uu dhalay dalxiis tamashlayn dhul barasho in loo yimaado ahraantan kumanaanka sano dhisan hay inta soo dhan $10,000 ayaa waxa lagu soo kharash gareeyay masaafadaas iyo waqtigaas oo dhan ayaa waxa lagu soo lumiyay silatul ahjar dhagxanta in la xiriiriyo dhagxanta in la barto dhagxanta in loo soo dhawaado dhagxanta in la jeclaado dhagxanta in la isku sawiro meesha laga halmaansan yahay waajibaadkeena saarnaa oo waxaan oo dhan awla ka ahaa oo waalidka in la xiriiriyo hooyada in la xiriiriyo aabaha la xiriiriyo qaraabada la xiriiriyo wax oo dhan la wada xiriiriyo
lacagta axjaartaas iyo dhagxaantaas lagu xiriirinaya waxa awlu ugu ah inaa waalidku ku xiriirisid khaasatan annaga maanta balaayadana haysata dhiigga la daadinaya qaraabadiina oo dhan waa kuwa dhulka ay jiifaan aan guryaha haysan dabeesh iyo dhaxanta ay ku dilaysa banaanka waxa weeyaan kuwaas awlu u ah dadka gaajeysan ee dhagxaanta ku xiranaya caloosha ee baahida u wada dhimanaya ilmaha dhoobada cabaya ee ma aragtaa malnutrition in nafaqa la'aanta la wada barbaray oo indhuhu u soo baxeen oo indhoolaha qaarkood wada noqdeen oo gacmihii la qalqaloocdeen in lugihii cudurrada ilaahay uu u keenay waxa weeyaan in la xiriiriyo kuwaasaa mudan in la buuxiyo oo wax la siiyo dhagxaan inta la xiriirin lahaa qof baad arkaysaa yurub oo dhan meelaan tegin maluu ku leeyahay intaas muxuu doonayay waxbaan soo barbaranayo ku leeyahay lacagaha uu khasaarinayay bal fiirin maxay maanta ku taraysaa wax ay ku taraysa male adduun wax ku tari mayso maanta waxba kama haysid aakhiran xisaabteedu waa ku sugaysaa la soco sirada rasuulku waxa weeyaan nafaxaad weeyaan ruux weeyaan yaqiin weeyaan nuur weeyaan waxa weeyaan caawimaad weeyaan waxay kugu dhiirigelinaysaa muslimiintaas qaraabadaas ehelkaas inaa xiriirisid ayay kugu dhiirigelinaysaa طيب rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ka soo laabtay madiina markuu ka soo laabtay ayaa xabaashi aabihii uu soo arkay ayaa hooyadii waxay go'aansatay in ay maka ku soo noqoto ehelkeedii dhaxda iyadoo maraysa al-abwaa meel la yiraahdo ayaa tii rabbi u iimaanaysa oo waxay ka baqaysay halkaas ayaa lagu aasayaa aabihii ayuu ka soo tagay xabaashi aabihii oo uu dul istaagay waa ka aabihii ku dhalay Abdullaahi ibn Abdul Muttalib ayaa la yiri 150 kilomitir kadibna waatana hooyadiiba adduunka faaruqday isagoo agoon ahaa mar labaad ayuu haddana agoon noqday markaas Maxamedul Yatiim balka waran oo taagan oo ilmeynaya oo hooyadii hortiisa ku dhimatay oo adduun kaga faaruqday oo halka lagu aasahayo ya Ahmed طيب Ayman ayaa soo kaxaynaysa awowgii ayaa u keenaysaa awowgii ayaa u keenaysaa Abdul Muttalib ayaa gurigaas wuxuu ka helayaa farxad ayuu helayaa jacayl ayuu helayaa garab intuu soo qabta ayuu kacbada keeni jiray markaas firaash aan qof kale ku fariisan karin ilaa Abdul Muttalib maahane ayaa lagu fariisan jiray Muhammad goob wuxuu fariisan jiray oo uu ka qayb gali jiray shir wuxuu ka qayb gali jiray gole wuxuu dhex tagi jiray cunug kale oo reer Quraysheed aanu fariisan karin jacayl intee leeg ayuu awowgii siiyay rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu calayhi ilaahay hadduu shay ka qaado shay ayuu kuugu gudahayaa markay intay xanaaqaan koofiyeyntii malay madaxweyntii Quraysheed markay xanaaqaan oo dhahan anagu ubad waa leenahay maxaa dadkan cunugan yar adkeenaysid waa maxay ayaa wuxuu oran jiray in ibni hada sayakunu lahu sha'n faraha ka qaada shani ayuu arinba xaaladiisa caadi ma aha ninkan ya mucjiso ayuu wataa wiilkan yare wiilashina labad ma aha iiga wareega ayuu dhihi jiray halkaas ka ayrin jiray salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi Muhammadul Yatiim Muhammad way u kuwa galeen marka waxay fiirin jireen shaniga uu sheegay Abdul Muttalib inay wax ka jiraan in kale markaas waxaad arkaysaa Muhammad intuu gacmaha isa saarto salawaatu rabbi wa salaamu calayhi haddii aan hadlaynin aan ciyaareynin maskaxdiisa feejigan dhiga raaraca oo wax dhageysanaya qalbi duleela oo qof walba hadlaya hadalkiisu dhageysan jiray kan weynay hadlaya fikradu ka qaadana kan fikrad waa imsi jir waa 6 jir 7 jir hay markaas kulli marka way yaabeen keena weynay anaga marka ee 30 jirka ah 40 jirka ilaa aan ku dhaarshiya marka hore odayaalka ma u tagayaa uqaasho ma u tagayaa ragga oo ma aragtaa wax garadka ma dhex fariisanaya waa maya waa marka hore 40 jir gar loo waxa arkaysaa intuu meel PlayStation game lagu ciyaaro intuu taga maanta dhan Barcelona iyo Manchester maanta dhan Bologna maanta waqti isku dhumeelay 5 saac 6 saac oo maanta dhan cabaada arkaysaa yani nasiib xumo weyn waa 40 jir nin gar la ayaad arkaysaa aawi Muhammadul Yatiim waa kaasa waa rasuulku lagu leeyahay ku dayda lagu leeyahay waa rasuulka 30 cisho aanu ka sheekeynayna waa rasuulka akhlaaqdiisa caalamka oo dhan ifisay weeyaan oo mugdigii ka saartay hay طيب 8 sano markii uu gaaray oo guriga awowgii uu ku noolaa muddo 2 sano ah ayaa noloshii ayuu faaruqay oo dhimanayaa waa agoontinimo kale awowgii jeclaa ee gacanta waalidka u ahaa ee waalidka kale u ahaa gacantiisa uu ku jiray ayaa maanta adduunkii ka tagay
intee dhib ayuu marayaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waa isagoo yar waa markuu u baahnaa waalid uu u baahnaa oo u baahnaa naxariista waalidka uu u baahnaa oo u baahnaa qof dumo uu u baahnaa oo u baahnaa laabta in la geliyo la tabtabo oo madaxa laga salaaxo oo la yidhaahdo wiil oo la dhunkado la dareensiyo qalbigiisa farxad la geliyo oo u baahnaa ayaa haddana intaasoo mashaakil iyo mixana ayaa ilaahay marinaya hay markaasaa waxaa uu kala dardaarmay Aba Taalib adeerkii ayaa la keenay guriga adeerkii ayuu maanta joogaa waa 8 sano 4 guri weeyaan yey soo martay ilaahay baan ku dhaarshay ya midkiina miyay soo martay arrinka isaga ah waa guriga hooyadii gurigii Xaliima Saadiya gurigii Abdul Muttalib iyo gurigii Aba Taalib oo imika ku soo wareegay waxa weeyaan waa 8 sano 4 guri weeyaan ilaahay baan ku dhaarshay takhayala waxaad malaysaa oo aad sawirataa arrinkaas oo kale hadduu adigu kugu dhici lahaa dadka oo dhan ma nici lahayd caalamka oo dhan ma nici lahayd noloshaada ma karaahiyeysan lahayd mucaqad la kariwaa ma noqon lahayd naxariistoo dhan ma kaa guuri lahayd bal Muxamed intaasoo dhan ma uuna noqonin salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma uuna noqonin 8 sano gudahood waalidiintiisii oo dhan awowaalkii iyo qaraabadii oo dhan ay ku wada baaba'een 4 guri oo san haysanin xataa meel uu deganaado oo uu joogo oo ku nagaado oo rasmi ku yahay aanu haysanin wuxuu ahaadana manbacu rahma waxaanu dhan maxaa sida loogu galaya rasuulka inaanu dhihin oo aanu ku xidhnaanin shay tagahaya aabahay inaanu oran hooyo inaanu oran ee uu yiraahdo rabbi waliga ay daa'inka waxa weeyaan وتوكل على الحي الذي لا يموت الله نول aan dhimanin tala saaro isagaas in uu ku koriyo ku barbaariyo weel ku noqdo adduun iyo aakhira aan ka dhimanin aan ka tageenin marka in yar aynu fiirino Muhammad isagoo intaasoo dhibaato soo maray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sidee bay ahayd ya noloshiisa naxariistiisa sidee bay ahayd aynu fiirino Taif rasuulkii oo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi isaga iyo Zayd ibn Haarisa oo ordaaya oo rasuulka la dhagaxyeynaya oo dadkii reer Taif ay dhagaxyeynayaan oo meel walba laga jeexay dhiigiisa ay socdaan lugihiisa iyo kabi ay isku dhigeen dhiig aawadi ay isku dhigeen oo uu Zaydna uu ilaalinayo rasuulka oo marba meel oo isaga xataa uu dakhran yahay oo uu u baahan yahay ilaahay uu bariyaayo يا ورسولك المينة وليجي يزيد وحسمه وجران لا أيهم وعدو وكود وريكسيه عالم كيودنا هريري سودنا عداودهم يا رسولك وأركيا أي إلهي وحوصه دري ملك الجبريل ملك الجبال مركزه وحويرين حدي أدونتد وأدي أمرتد بورحس أيان غيرها نقدر نكون بابئنا يا رسولك قوة أيوة شيء أدو محاسمين له أدو عيل كاس قوة أو دتك كدلي كعيرسنا هل كان جوجان أو هل كان ما أركته وهل عيدا إيو هالشيء هلي حدكوا سمين له وطابين له هذا ليك بتكود دقيقة لقونا صومعهم لكن إيك رسول كنا نحرس أنت لقى أي قلبي يسوق جرته يسوق أنت صوت لبعتها صومري أو أيتن وجودن بيسي وحولي صلوات ربي وسلامه عليهم إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا تذكر هاي بابئنين لبك ما لب مالها إلهي بادوس عريسنين ووحن عري إلهي أيان أهين لبك يقول عي ديق دادنا يا وهريا محاو عشيردي سودنا نفخرس إيو تضحية أياه marka wuxuu yiri nimankan waxaan rajaynayaa hadii iyaga dhibeen dadka uurkooda ku jira dhabarkooda ku jira inuu ilaahay soo saaray iyagoo qiraaya la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah habeen dambe ayaan si aan baqaadi doonaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. وبت